markaana aan la yeelan doonaa dhalinyaro group ah isla markaana lagu magacaabo Some Action Films. Dhalinyaradan waxa ay soo saareen dhawaan film ka hadlaya kufsiga iyo waliba tacdiyada ka dhaca Afrika gaar ahaan Soomaaliya. Marka hore waan idin soo dhaweynayaa soo dhawaada saddexdiinaba. waraysiga intuu socdo waxaad ku daawan doontaan filimkii ay soo saareen iyo waliba maskaxdii lahayd curinta. Marka hore waxaan soo dhaweynayaa Bilo Faysal Bile Faysal Bile soo dhawow. Waxaad ka warbixisaa muddo intee laag ayuu kugu qaatay filimkan, maxaase kugu dhaliyay inaad curiso? Ismaaciil aad u mahadsan tahay adiga iyo Somali Cable TV. waxaan dabacadnahay markii saddexaad aan ka qayb qaadanay barnaamij gaar ah oo aan kaga hadlayo film aan aniga sameeyay. xaaladda maaragtay gabdhaha Soomaaliyeed ee dhibaatooyinka dalka ku gaaraan, ka hadlaya dhaqamada soo jireenka ah ee qaladan ee lagu xaliyo kufsiyada ka dhaca dalka, ka hadlaya ama dhiirigelinaya ciidamada Soomaaliyeed inay dabcan ka qayb qaataan ama ay garab siiyaan cid walbeeto maaragtay ama gabar walbeeto dhibaato soo gaartay, dhiirigelinaya gabdhaha dhibaatooyinka intii ku dhacaan haddana hadii baadiyaha ahaaleed, hadii dabcan dalka gudihiisa ahaaleed, haddana lagu xaliyay qaab dhaqan Soomaaliyeed ah. dhaqankaasoo dabcan ah mid qaladan maadaama qofka hadduu dhibaatada gaaray si hoos loo xaliyo sharciga aan la marsiin, taana kaleftay in kufsiga uu sii siyaado ama siyaabooyin kala duwan kufsiga u dhaco. taasaa marka keentay inaan sameeyo filimkan. Waa gartay muddo intee laag marka oo idinku qaatay inaad soo saartaan filimka? horta filimka ilaa iyo muddo wuxuu qaatay 5 bilood. aniga ahaan duubistiisa markii laga soo tago inaan aktaradii helo, inaan dabcan sheekadii qoro waxay qaadatay muddo 1 bil iyo bar ah. duubistiina dabcan iyo waliba post productionkii ama qaybtii waxay qaadatay muddo inta hartay ay runtii intaas isku qaadatay. marka waqtigaas oo dhameystirna ku baxay. haddana filimka shaqadiisa aysan ahayn kaliya in jilaayaal ay ka qayb qaataan oo sheekada waxa waaye waa loo dhameystirnaa. team badan ayaa filimka shaqeynaya oo loo soo xulay. haddana waxyaabaha filimka intuu soo baxay adkeynaya ama shaqadiisa badinaya waxay ahayd in la helo karakteradii saxda ka qayb qaadanaya filimka. sababtoo filimka odayaala ku jiray, maamooyina ku jiray, marka way adkeyd in intaasoo dhan ma aragtay la isku keeno laga dhadhacsiyo filimkii shaqadii la bilaabo. taasaa keentay runtii inuu filimka muddo aad fara badan u qaato. waa gartay filimka uu soo baxay saameyn xoog leh wuxuu ku yeeshay baraha bulshada, walow uu ku soo aaday xilli sanadkii tagay kufsiyada Soomaaliya ka dhaca ay aad maaragtay markaasay u bateen. ka waran falcelin intee laag ayaa ku soo gaartay markii filimka uu baahay adiga iyo tiimkaadaba? horta falcelinta inta ugu badan waxay ahayd runtii taageerid iyo dabcan in emotional dadka ay noqdeen, because filimka sababta u sameyn waxay ahayd in emotional uu noqdo ama dadka dareen gooni uu geliyo. dareen badan oo qarsanaay ama waxyaabo badan oo dadka dhex guuxayeen ay rabeen inay ogaadaan aan ogeysinay. haddana wax dadka ugu badan oo filimka runtii aad u saameeyay waa dadka qurbaha ku nool ama qurbaha waqti badan ku noolaay, maadaama qaarkood aysan ka warhaynin macnaha dhaqamadan soo jireenka ah ee maaragtay gabdhaha dhibaatooyinka loogu gaarsiiyay. sidoo kaleeto in booliskii maaragtay ama dalkii si fiican filimka ugu faafay oo la fahmay in muhiim ay tahay in nin walbeeto gabar kubsado ama gabar dhibaato gaarsiiyo in sharciga la marsiiyo. in sidoo kaleeto gabdhihi haddana ay dhiirigelin ku arkeen maaragtay gabar walbeeto dhahdaa haddii halkan dhibaato ay gaarto macnaha ma ka aamusayo maaragtay waxa waaye waa soo banaanka u soo bixinaya. marka taasaa isku keentay oo filimka dabcan oo falcelin ahaan u helay.